war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska komishinka booliska dowladda deegaanka soomaalida qaybtiisa baadhista cabashooyinka iyo oogista dacwadaha ayaa lagu sheegay in xabsiga loo taxaabay aadan xasan irir oo loo yaqaano aadan geney kadib markii lagu soo eedeeyey falal arxandara oo ka dhana xuquuqda insaanka iyo sarraynta sharciga deegaanka iyo kan dalkaba sida uu noo sheegay gaashaanle cabdinaasir maxamed daahir oo ah garwadeenka geedi socodka baadhista cabashooyinka iyo oogista dacwadaha ee komishinka booliska dowladda deegaanka soomaalida xilligii la soo dhaafay ilaa iyo 8 sano la oran karaa ama 9 sano la oran karaa waxaa jiray deegaanka nidaamka xuquuqda bini'aadamka iyo dastuurka iyo nidaamka in la jabinayay baa jirtay oo waxa weeyaan ay xubno ay xukuumaddii xilligaas joogtay ay hormuud ka tahay ay dhibaato sameynayeen baa jirtay ku sameynayeen shacabka deegaanka ku sameynayeen waxaa jirta in qofka markii la soo xiro loo adeegsanayo qaab sharci ka baxsan marka ayaha uu hadda uu culus waxa weeyaan nimanka aan waxa weeyaan jira gacanta ku hayno waxaa jiray gabar la yiraahdo Asiya Sheekh Maxamed la yiraahdo gabadha marka waxa lagu sameeyay nidaam ka baxsan sharciga oo kulli cidii aragtay un baa waxa weeyaan ka sheegan karta cidii hadda looga sheekeeyo in aaminin gabadha waxa la sameeyay waa la xiray ninkii dambe baaraha marka meesha ka ahaa iyo nin marja ahaa كل نك مرجع وقول تسير ليش هاي نك دمبارها أنا قعدت كوينا وحالي هذا آدم حسن إربل هذا حلي بولس دمبارو مشكها لبعض عن جوادة وحسن وين ولا بحين مال بيلتهين أفرت اللواط اللواط اللي لبعض عضو من المال كحرين مركزي قاوين يدو حوين قاون حبن كترنكا أيوة حالي اسمه الضبع لقيتش بعض يرى والكامتا انتي دبل الجليو يدو يا لقد دفعي دبق لقيسي مركز هذا ناس قراحات أيا لوشدي مركز إذا عندنا إسكاقة وتقعنتي هالك إسكاقة وتقعنتي ولا تبي والله هذا عنده وتشانته واحد تبي وأنا كده مباراه آذن اللي هذا أيا تبي وأنا قرنا يمكن وقرأ سووا شو سووا قرأ وحال كله شيء يجونا كوك هلا وهذا أنا ما عمت ماشي كل شيء لكن يجونا أرماس كل سمية بعشرة قروي شوان قروي بحصله وده الكلام عشان قروي شوان هالمركب بلن قاعدنا هنا كوانا أن سوق قبل دونه شري هور كينو دونه وحاكلوا شيء يسوونه قبل كلا يدون شرته قبل واحد حليمه شر علي بعدين هذا قبل أي ناس كلا لوجستي أرنت ناس كلا واحد كسب وحاول يقولوا ده لوجستي قبل واحد سمي ولا تشرد لي لما يرجع عضو هدو تبين فراح سيال فراد بتشان لما يرجع عضو تبين إن عن مرحة هذا طبعا كانوا يملون هاي كبكس كسا ولا قال عاي مركا حلقة وحياة هدتك حلقة أرنت سميني إلا أفرشان قف ملاسي هاين يجين حويا هذا وحن عنده كهنا مثلا كل نوعها لكن ولا هذين وين ولا قرنا وين يوم سكرنا يا والوجود بتره haddaba waa tanaasiya sheekh maxamed oo ah gabadha loo geystay jirdilka ba'an ee loo haysto aadan xasan irir oo loo yaqaano aadan geney oo la hadashay telefishinka caalamiga ee SRTV waxa ayna tiri sida tan aniga gobolka qorxay qabdi dahar baa laga qabtay am 6 saac habeenimo la baxay maxay tahay buur baa leeyahay tagay rafaadiye aad fara badan baa la adeegsaday iyagoo 7 ay soo qaadeen gaari laba shirey igu soo rideen kadib waxa la keenay guri niman mas'uuliin aan anigu markii mooday aad waaweyn aadan ganay ku jiro yani markii saa igu hortooreen kubaadka iga qaaday markii kubaadka iga qaaday qof waxaan ahaa dhabarka ka jaban oo lugahay midba meel bay ku dhacday wax maroon xunaan de ma jirto yani waayir xarig duuduban TV agtiisa uga soo dhiftay xagasha oo dabka igu horeysay uu ku xidhay saasuu ila booday daaqadii saa igu soo xidhay kadib lugti markuu mid la booday mid kale halkaas kaga istaaga dhuguc bay tiri anigoo sidaa ah baan israayninku markuu dulwaha kala xidhay wuxuu ku socdaa inuu yani ku kufsado gacanta aad aragtay naafada ayaan halkaas u galiyay saxan saa u galiyay saantu ii korfisay laba kaliya iga saaray oo saa gacanta ii rogay biiri candho falka ii damariyo biiri halkan baad ku moodaysaa inaan ungureeniyo qarmoon iyo qiiq baa ka oriyay biiri iyo candho aad jirkayga dhan candhofti way gaadhay yani bicihi ku qaylinay aad fara badan xagan saa ugu daymooday bicihi buu soo qaaday wuxuu aad u farbeyntii horeysay saa dabka u soo dhibic bay tiri xariga markaa ma goosaninka kore intii iyo tii kale wixii isku wada gubay markaan arkay inaan ololay ya naftu waxa xunta qofkayga jabnaa in hawada galay xarigii koraan soo goostay wixii oo bacabartii u yani way isku wada dabhureen wixii oo dhan bacaha lagu qayilayna gurisan oo kale oo yani aad u fara badan buu ahaa bacaha marka firq dhawshada midaan gacan saa ku orina de jirkayga waa mudux
oo yani waa duubkii buu la tegay tii kale saa igu dhacdeen arkanin in laba boodi hoosteed wax kale way iska adag tahay anna waan jabnay gacantii waan ka jabnay dhafarkii waan ka jabnay yani wax hadda aan dareenkayga ma ogola inta in ka badan inaan sii wado aadan gani ninkaas waa ninka dhibka u weynigaysa ninka kala xiray ninka dabka kuma karayeen kuma karay kolba bacda bac ku soo daray way asi hadda dawladdu talaabay qaaday dadkii dambiga ku geystay gacanta lagu dhigay maxaa dareemaysaa maanta lama soo koobi karo wallahi aad bay farxadayda shucuurtayda u faraxsan tahay maanta waxaan qashinayaa dadka ama isaga faamilkiisa ama faamil kale aha inay arinta ay yani ay dhugtaan oo dhageystaan waxana una matalin waxa ma faamil ama qoys wax shakhsiyan aha 12 bisha December bay ahayd markii uu madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar uu xafiiskiisa ku qaabilay gabdho kamida gabdhihii soo maray jeelka dhexe jeelayeen loo yaqaanay dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan loo geystay iyadoo guud ahaan shacabka dalka Itoobiya todobaadyadii ugu dambeeyay si weyn uga hadlayeen tacadiyada bini'aadamnimada ka dhanka ah iyagoona dawladda dalka iyo dawlad deegaanada dalkaba ka codsadeen sharciga loo horkeeno dadkii geystay tacadiyadaasi meelka dhaca ku ah shacabka dalka gaar sida loola dhaqmay dadka jeelasha ku xidhnaa xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa dadaal ballaaran ugu jirta sidii kor loogu qaadi lahaa sarreynta sharciga iyo ilaalinta dastuurka oo lagu jaangoonayo xuquuqaha aadamaha iyo dhowrista karaamada muwaadinka gabagabadiina garwadeenka geedi socodka baarista cabashooyinka iyo ogista dacwadaha gaashaanle Cabdinaasir Maxamed Daahir ayaa waxa uu shacabka deegaanka ugu baaqay inay gacan ka siiyaan in sharciga loo horkeeno cid kasta oo dhibaato shacabka u geysatay isla markaana shacabku ay noqdaan kuwa mar walba sharciga u heeliya